ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa howlgal wadajir ah waxa ay ka fuliyeen xaafado ka tirsan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalka ayaa intiisa badan waxa laga sameeyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Baraawe iyadoona ciidamada booliska ay baaritaan ku sameeyeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo xaafado ka tirsan magaalada Baraawe. sidoo kale howlgalka ayaa ciidamada waxa ay ka fuliyeen wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Baraawe si gaar ah gaadiidka taksiga oo si weyn looga isticmaalo magaalada Baraawe iyo tuulooyinka hoos yimaada. gaashaanle Maxamed Salaad Caananuug oo ah taliyaha saldhigga degmada Baraawe ayaa markuu howlgalka soo dhamaaday wuxuu warbaahinta u sheegay in ujeedka howlgalkani uu ahaa mid lagu sugayo amniga guud ee magaalada Baraawe. waxaan ku guda jirnaa howlgalkii habeenimo sida caadada noo ahayd habeenkii ay galayeen ciidanka booliiska degmada Baraawe kaasoo lagu sugayo amniga looguna hortagayo nabadiidka iyo tuugnacaska habeenkii dadka dhibaateeya. wuxuu ahaa mid noo joogta habeen walba caawa kii baan ku guda jirnaa mana aha mid joogsanayo oo habeen iyo laba ku eg waa mid caado ah booliiska habeen walba degmadana aan ugu kuurgalayna xaalaheeda wixii ku soo siyaado insha Allah waa sii wada doonaa uuna sii socon doonaa shaqada aan hadda wadno way sii socon doontaa. dadka ku nool degmada Baraawe bulshooyinta ku nool degmada Baraawe waxaan ka codsanaynaa inay gacan buuxda siiyaan ciidanka booliiska waayo ciidanku meel kasta ma taagna laakiin iyaga meel kasta way joogaan wixii ay la kulmaan inay u soo gudbiyaan saldhigga booliiska iyo xubnaha booliiska ay soo wacaan telefoonadooda. taas waxaan ka codsanaynaa shacabka ku nool degmada Baraawe haddayaan nala shaqaynin shacabka waxaan qaban karna waa yaraanayaan. sidaa darteed booliiska gacanha lagu siiyo shaqadiisa uu idin shaqaynayaa habeen iyo maalinba. fadlan nala shaqeeya oo gacan siiya. magaalada Baraawe oo ah caasimadda maamulka Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii dambe waxa ku soo badanayay tuugo la sheegay inay dhac u geystaan habeenkii dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Baraawe.